waa waqti ka mid ah waqtiyada ugu muhiimsan ee soo mara qofka bini'aadamka ah noloshiisa. Waa waqtiga dahabiga ah, waa waqtiga uu qofku noloshiisa keligiisa maamulo. Waa xubin keeni karta dib u dhisidda iyo cusboonaysiinta ummadda. Hore ayaa loo soconayaa, adduunkan waqtigiisa wuu iska yar yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Magacaygu waa Dr. Yacquub Xasan. Maanta aan yara fiirino dhalinyaranimada. Dhalinyaranimada waxaa lagu tilmaamay alam ama xanuun, isla markaana lagu sifeeyey amal ama rajo iyo yidiilo iyo meesha uu ku jiro ummadda horumarkeeda. Dhalinyaranimada waa waqti ka mid ah waqtiyada ugu muhiimsan ee soo mara qofka bini'aadamka ah noloshiisa. Waa waqti aynu dhihi karno waa waqtiga dahabiga ah, waa waqtiga ay soo baxdo qofka shakhsiyadiisa iyo waxtarkiisa. Waa waqtiga ay burqato ama dilaacdo dhaqamada uu qofku leeyahay. waa waqti uu muuqan doono meesha uu qofku aadi doono bidix iyo midig. waa waqtiga uu qofku u xoog badan yahay. waa waqtiga uu qofku noloshiisa keligiisa maamulo. waa waqtiga ugu muhiimsan ee soo mara qofka bani'aadamka ah noloshiisa. waa waqti qofka dhalinyarada ah guul gaari karo, ummadiisana guul u horseedi karo. sidoo kale waa cagsiga, waa waqtiga ay muuqan karto qofka dib u dhiciisa iyo fashilkiisa nolosha. dhalinyaranimada waa xubin keeni karta dib u dhisidda iyo cusboonaysiinta ummadda. dhalinyaranimada waxaa ka horeeya waa fudeed, caruurnimo iyo ciyaar. sidoo kale waxaa ka dambeeya gabow iyo duqnimo iyo daciifnimo. sidaa daraaddeed halkaas waxaa kaaga iftiimaya inay tahay marxaladda awoodda ee qofka dhista shakhsiyadiisa iyo horu socodkiisa. dhalinyaranimada waa meesha la wada jecel yahay. kan yar ee aan weli soo gaarin wuxuu rabaa in fursad loo siiyo wuxuu doono inuu samayn karo. sidoo kale kan gaboobayna wuxuu macaansanayaa noloshii dhalinyaranimo ee uu soo maray. dhalinyaranimadu waa waqtiga labada xilli u dhexeeya. waqtiga ka horeeya ee caruurnimada ah, caruurnimo waa ciil laga koro ay dhahaan Soomaalidu. da'dana waa waqtiga uu qofku cuslaado oo maskaxdiisa ay kortay laakiin awood aanan lahayn. sidaa daraaddeed waa waqtiga uu qofku muujiyo horumarka, waxqabadka dhanka cilmiga, jirka iyo caqliyadaba. waa sababta aadan lugahaaga u dhaqaajin doonin maalinta aakhiro ilaa 4 ama 5 su'aalood in lagu weydiiyo maahane oo ku saabsan waqtigaaga iyo dhalinyaranimadaada, sida uu xadiidka rasuulka sallallahu calayhi wasallam inoogu cadeeyay. sidaas daraaddeed waxaa laga wariyay suubanaha sallallahu calayhi wasallam inuu yiri 5 ka faa'iideyso inta aanay ku imaanin 5 kale. ka faa'iideyso dhalinyaranimadaada inta aadan gaboobin, yacni xilligaas waa fursad ayaysan ku dhaafin. fursadaasi ka faa'iideyso caafimaadkaaga inta aadan xanuunsan, oo qofka marka uu xanuunsado awood uu wax ku qabsado ma lahan. sidaas daraaddeed ka faa'iideyso caafimaadkaaga. ka faa'iideyso hantidaada inta aanay wax la'aan kugu dhicin, oo wax u horumarso aakhiradaada oo aad ku moodid oo aad Allah subxaanahu wa tacaala ku hor istaagtid. ka faa'iideyso fursadaada inta aadan mashquulin, oo noloshaada jaaniska Allah subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey waxa ku anfaca adduun iyo aakhiro ku qabso. ka faa'iideyso noloshaada inta aadan dhiman, oo nolosha maanta ayay kuu fududahay, berri haddaad dhimato soo laabasho dambe ma jirto oo hore ayaa loo soconayaa. adduunkan waqtigiisa wuu iska yar yahay, laakiin inta uu nabiga sallallahu calayhi wasallam inoo sheegay in laga faa'iideysto, dadka labo ayay u kala baxaan: cid fursadda ka faa'iideysata iyo cid ku khasaarta. qofka aan dhalinyaranimadiisa waxba ku qabsan, subaxii toos, meelaha soo marmar, shaah soo cab, sheekee, internetka waqti ku lumi, qof bay noloshiisa oo dhan wareegan tahay oo fahmila muhiimadda dhalinyaranimada iyo awoodda uu maanta hayo inay dhammaanayso iyo in kale. bal aynu tusaale soo qaadano. dadkii adduunkan soo xukumay oo diinta ina soo gaarsiiyey dhalinyaro ayay ahaayeen, sida asxaabtii rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo dadkii ka dambeeyey. meesha waxaad ka fahmaysaa awoodda dhalinyaranimada oo aan maanta dayacnay inay wax badan oodan malaysan karin ay bedeli karto. muuqaalkeena intaas ayuu ku kooban yahay. waxaan idin leeyahay khayr iyo caafimaad. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.